أحمد محمد نور وزير ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xarunta wasaaraddaasi ku leedahay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay isla markaasina si adag uga soo horjeestay ciidamada uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ka qaadayso gobolada Sool iyo Sanaag Bari kuwaas oo la geynayo magaalada Muqdisho waxaanu wasiirku sheegay in aanay dawladda Soomaaliland arrimahaas u dul qaadan doonin isagoo fariin u diray dawladda Soomaaliya uguna baaqay inay faragelinta ay ku hayso waxaan jecelahay inaan ka hadalno xaaladda ku soo kordhaya oo aanu aragno gobolka Sanaag iyo Soolba labadaba kuwaas oo ah in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ka wadaan gobolka wadogtiina Somaliland waa dawlad caalamka oo dhan og yihiin كسو أقوس ويرانو لكن العالم كله صعدة حق أمنك إياه نبتقليدا وحين نبتقليدا كهر إيمان هيا أما نبتديت كأه إن لا دجالمو أما لا جهر تقول دي أنا مديدنين وأنا كقيب قادنا شعب كرير سومالي لانجارهان قبله سناك بري وتدوق يدير دبعتها كدعدي دولة دون واتان تعسي وقدر رهالكا أنا وقت تعسيدين أنا ضدك هالكا كجريود أنا بدن كودا جرنا إنه يعيد ما دي بود لام بدين عول لكن يدو أنو سيدا أنو تعسي قرين بودلان واحد مودائن هدا وكسو وجهان يهي مدحوينه فدرالكا وكسو صعود قروي تاسينا waxay tusaaleysaa sida wararka xogaalkii naga soo gaarayaan Sanaag Bari iyo gaar ahaan Sool iyo Buuhoodlaba inay doonayaan inay faragelin badan ay ku sameeyaan iyagoo dadka ku wajahaya ama ka dhaadhicinaya in ciidamo loo qaado federaal ah gobolada laga qaado oo shirki ka dhacay gobolada laga qaado oo la geeyo meesha la yiraahdo in xamar taasina waxaad moodaa faragelin toos ah inay tahay indhahana kama qarsanayso Soomaaliland runtaan u sheegaynaa hadii ay arrimahaasi ay Soomaaliya ka waantoobi weydo oo gobolada Soomaaliland min ceelaayo ilaa loo yacdo wixii faragelin ku sameeyaa sulka Somaliland ay faraha kala baxdo geesta kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsigu waxa uu ka hadlay qodobadii heshiiskii ka soo baxay wada hadaladii Somaliland iyo maamulka Khaatumo ee dhawaan Hargeysa ugu soo gabagaboobay dawladu geedeen oo wada hadaladii si fiican ay u socdeen Ali Khaliif iyo dawladdu waa wada hadlayeen laakiin lama waayo wax carqaladeeya meel walba carqaladu way iska jirtaa laakiin dawladda Somaliland mar walba shicibkeeda iyadoo danaynaysa Buuhoodle iyo Sool cid alla cid iyo Sanaagba mar walba wada hadalada waa la furtaa dadkuna waa dad reer Somaliland ma aha dad reer Soomaaliya ah ee dawladda federaalka ku xiran way iska jiraan dad xagga xamar isaga shaqo tigay oo jooga laakiin mar walba Somaliland talaabooyinka ay qaaday waad ogaadeen shirkiga Hargeysa ka dhacay waad ogaadeen shirarkii badnaa aynaba ka dhacay wada hadalku sidoo u soconayo waad la socoteen heshiis toos ah la gaaray Ali Khaliifna waa cadeeyay laakiin khilaaf lama waayo oo laba qof ama saddex qof meelaha ka tiraabta waa jiraan Soomaaliland Abdullahi Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa